لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu acraaf. waxaan ka soo baxnay qisadii nebi nuux calayhi assalaam. qoomkiisana uu ku yidhi, qoomkeeyow ilaahay caabuda, ilaah aan alla ahayn ma jiree, waxaan korkiinna idinkaga cabsanaa maalin weyn cadaabkiisa. mala'dii qoomkiisa ka mid ahaabaa jawaabay, waxayna dhaheen innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin, baadi cad baan kuu aragnaa. qoomkeeyow baadi kuma sugni buu dhahay, laakiin rasuul rabbialcaalamiin xaggiisa laga soo diraan ahay. waxaan idin soo gaarsiiyey risaalaadka rabbi alla xaggiisa, waxaadan ogeyn baan ka ogahee, ma waxaad la yaaban tihiin inuu dikri idiin yimid rabbigiin xaggii, ninna lagu soo dejiyo idinka mida suu idinkugu digo, idinkuna aad u cabsataan. way beeniyeen. nuux waan badbaadinay buu dhahay, ilaahay iyo intii rumaysayba doon ayaan ku badbaadinay. intii kaafiriin noqoto aayaadkaynii beenisayna waxaan ku qarqinoon ku maashaynay biyo, waayo qoom arag beelay ahaayeen. qisadii hamuud ayaan wax yar soo bilownay. reer caad ayaa loo diray walaalkood huud, wuxuuna ku yidhi asagana, rabbi caabuda, alla aan ilaah ahayn ma jiro, ma cabsanaysaan miya? mala'dii waxay dhaheen kufrisay oo qoomkiisii ka mid ahaa, waxaan kuu aragnaa doqon inaad tahay, beenaalayaashaadna ka mid tahay. qoomkeeyow safaahada iyo doqonnimo iguma sugna buu dhahay, laakiin rasuul baan ahay oo min rabbialcaalamiin, caalamiinta rabbigood xaggii laga soo diray. meeshaasay noo joogtay, uballiqukum, waxaan idin soo gaarsiinayaa buu yidhi risaalaati rabbii, rabbigay risaalaadkiisa iyo wax allaala wuxuu ila soo diray ayaan idin soo gaarsiina. wa ana aniguna lakum adinka naasixun, mid idiin naseexaynahaya ayaan ahay, amiinun oo la aaminay. ilaahay baa risaale igu aaminay, wax allaala waxa xaggiisa ka imaanaya addoommadiisa u socda inuu igu aaminaan idinka idinsoo gaarsiinaya. uballiqukum, waxaan idinsoo gaarsiinayaa risaalaati rabbii, rabbigay dhambaalaadkiisa iyo risaalooyinkiisa. wa ana aniguna lakum adinka naasixun, mid idiin naseexay, amiinun haddana ah oo markaa la aaminay. awacajibtum, ma waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun, dikri iyo waxyi iyo qur'aan min rabbikum, rabbigiin xaggiisa inuu idinkaga yimid miyaad la yaaban tihiin? calaa rajulin, nin dushii lagu soo dejiyey oo minkum adinka idinka mid ah, liyundirakum, suu idinkugu digo. wadkuruu xusuusta qoomkeeyow id wakhti jacalakum, ilaahay uu idinka yeelay khulafaa'a, kuwa adduun ka yimid, min bacdi qowmi nuuxin, qowmu nuux markii la halaagay kadib. wasaadakum, wuxuu idiin kordhiyey ilaahay fi lkhalqi, khalqiga iyo abuurkana wuu idiin siyaadiyey, basdatan fidin, xagga xoogga, xagga jismiga, xagga cumriga, xagga haysashada, intaba ilaahay waa idiin kordhiyey subxaana wa tacaala, waa idiin siyaadiyo, waa idiin badiyey. fadkuruu, xusuusta aalaa'a allaahi, ilaahay nimcooyinkiisa, ilaahay nimcooyinkiisa xasuusta qoomkeeyow, lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaani. nebi huud ayaa qoomkiisii la hadlaaya, wuxuu u sheegayaa waxaa lala soo diray, ama uu u sheegayo inuu yahay risaalo xagga ilaahay ka timi subxaana wa tacaala, asagana inuu naasix amiin ah yahay. uballiqukum, waxaan idiin soo gaarsiinayaa buu yidhi risaalaati rabbii,
rabbigay risaalaadkiisa. ilaahay risaalaad uu ii soo dhiibay inaan idin soo gaarsiiyo ayaan idinkugu imid. wa ana aniguna lakum adinka qoomkaygiiyow naasixun naseexeeyaan idin ahay, mid idin naseexaynayo wanaagga idin tusaaya. amiinun haddana aamin ahoo risaalo iyo dhambaal alle lagu aaminayey. awa cajibtum ma waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikri inuu idin yimid ama idin yimaado oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka yimid, haddana calaa rajulin nin dushii lagu soo dejiyey oo minkum adinka idinka mid ah. waayo mar walba waxay diidanayeen see nebi u noqonaa bashar annagoo kale ah see nebi u noqonaa, taasay meesha taagan yihiin. markaasuu nebi huud wuxuu leeyahay ma waxaad la yaaban tihiin dikri rabbigiin xaggiisa ka yimid oo nin lagu soo dejiyo idinka mid ah, liyundirakum suu idinkugu digo. horayna waan u soo marnay haddii nebi laga dhigi lahaa rususha, dadku maba awoodi lahayn inay la fadhiistaan, inay wax ka dhegaystaan, inay weheshadaan. laakiin alla waxay keentaa in nebi laga dhigo bini aadam ayagoo kale ah. say u xanuunsanayaan u xanuunsada, say u baahanayaan u baahanaya. waayo hadhow haddii malag laga dhiga waxay dhihi lahaayeen kan malag waayo wuxuu qabanayaa qaban kara. marka bini aadam saasaa looga dhigay liyundirakum suu idinkugu digo. wadkuruu waxaad xusuusataan qoomkeeyow id wakhti jacalakum uu idinka yeelay ilaahay khulafaa'a kuwa khaliif noqday, arlada camiray oo yimid min bacdi qowmi nuuxin qowmu nuux kadib. qowmu nuux markii la tirtiray ee la halaagay kadib ayaa ilaahay arlada khaliif idinkaga dhigay. wasaadakum wuxuu idiin siyaadiyuu idiin kordhiyey fi lkhalqi abuurka dhexdiisa bastatan fidin. waxyaabo fara badan ayaa laydiin fidiyey. waayo nimankan qoom reer caad ah markuu ilaahay ka hadlayay alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama daati alcimaad allatii lam yukhlaq midluha fi lbilaad. ayagoo kale bilaada laguma abuurin buu dhahay ila subxaana wa tacaala fi lkhalqi abuurka dhexdiisa bastatan fidine. fadkuruu xusuusta aalaa'a allaahi ilaahay nimcooyinkiisa, lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaane. jawaab bay bixiyeen marka. qaaluu waxay dhaheen aji'tanaa ma waxaad naloola timid linacbud allaha inaan ilaahay caabudna waxdahu keligii. ujeeddada aad rabta yahuudow ma inaan ilaahay keligii caabudnaa oo wanadara aan ka tagno maa kii kaana ay ahaan jireen yacbudu kuwa caabuda aabaa'unaa aabbayaalkeen. waxaan hiddo iyo dhaqan u lahaan jirnay oo aan abbiisir ka soo gaarnay inaan ka tagno oon ilaahay keligii caabudnaa noola timid miya? warkaa kaa yeeli maynina noola imow oo keen bimaa tacidunaa waxaad noogu hanjabayso. waxaad noo yaboohaysa waa laydin cadaabaa haddaad ilaahay caabudi weysaan. cadaab yoom cadiiman idinkaga cabsanaa waxaad leedahay waxa reebanina keen bay dhaheen. fa'tinaa bimaa taciduna waxaad noogu hanjabaysood noogu goodinaysa ama aad noo ballanqaadaysa keen in kunta haddii aad tahay min alsaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay keenba cadaabkaan aragne. jawaabtaasay markaa bixiyeen. qaaluu waxay dhaheen aji'tanaa ma waxaad noola timid huudow linacbud allaah inaan ilaahay caabudna waxdahu keligii. hal ilaah caabuda miyaa ujeeddadaada? wanadara aan ka tagna miyaad noola timid maa kaana yacbudu wixii ay ahaayeen kuwa caabuda. maa kii kaana uu ahaa yacbudu kuwa caabuda aabaa'unaa aabbayaalkeen. waxay caabudi jireen inaan ka tagno intaa lagu soo dhaqmahayay. fa'tinaa bimaa tacidunaa noola imow waxaad noo yaboohayso ood noo ballan qaadaysay cadaabka keen bay dhaheen in kunta min alsaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay. qaala wuxuu yidhi nebi huudna qad waqaca waaba dhacayba calaykum korkiina min rabbikum rabbigiin xaggiisa waxaa idinkaga soo dhacay rijsun qurun iyo waqadabun caro. rijsigu waa cadaab iyo qadab ayaa ilaahay xaggiisa idinkaga timidba. atujaadiluunanii ma waxaad igula doodaysaan fii asmaa'in magacyo samaytumuuhaa aad magacowdeen.
magacyaad igula doodaysaanood ilaah ka dhigateenoo idinka aad magacowdeen antum adinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaalkiinba oo maa nasala allaahu ilaahay uusan ku soo dejin bihaa kaa min sulطaanin wax xujo ahee suga cadaabka waayahe cadaabkan asagaaba imaanayay suga innii aniguna macakum micigiina min almuntadiriina kuwa idinla sugayaan ka mid ahay saad u sugaysaan ayaan u sugaa cadaabka ani gacantayda kuma jiro ilaahay ayaa keenaya xilligii uu doonuuna keenaya subxaanahu wa tacaala qaala huud wuxuu yidhi qad waqaca waxaa dhacay calaykum korkiina ku soo dhacay min rabbikum rabbigiin xaggiisa waxaa dushiina idinkaga waajibay waaye rijsun cadaab iyo waqadabun carro ilaahay iyo rigsi baa idinku sugnaato idinku soo dul dhacdo idinku waajibtaye atujaadiluunanii ma waxaad igula murmaysaan fii asmaa'in magacyo samaytumuuhaa aad magacowdeen antum adinkii wa aabaa'ukum aabbayaalkiinba waxaan aad leedihiin ma ilaahyaalka aabbayaalkiin ay caabudi jireen maan ka tegaynaa wax ay yihiin ma laha magacyaad idinka iskama magacowdeen iyo aabbayaalkiin waaye maa nasala allaahu ilaahayna uusan ku soo dejin bihaa kaa min sulطaanin wax aayad iyo xujo ah faاntadiruu suga cadaabka waa imaanaya innii aniguna macakum micigiina min almuntadiriina kuwa idinla sugayaan ka mid ahay cadaabkiibaa yimid faanjaynaahu waan badbaadinay waa nebi huud waaladiina kuwiina waan badbaadinay macahu asaga micigiisa ahaa oo rumeeyey biraxmatin naxariis sababteed ayaan ku badbaadinay minaa annaga xaggeenna ka ahaatay waqatacnaa waxaan goynay daabira aladiina kuwii ciribtooda kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeena wamaa kaanuu ma aysan ahaanin mu'miniina kuwa mu'miniin ahoo rumeeyey xaqa iyo diinka ilaah subxaanah wa tacaala isla markii cadaabka yimid cadaabka lagu halaagayna dabayl baa loo soo diray sida ilaahay tilmaamay subxaanah wa tacaala kulayl intuu u yimid ayay arkeen daruur aad u qabow falammaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim markay arkeen daruur ku soo socota xaggooda qaaluu haadaa caaridun mumtirunaa bay dhaheen tani waa daruur ama dabeelna roobaynaysaa bal huwa ma stacjaltum bihi waa waxaad degdegsiya dalabteen baa la yidhi riixun fiiha cadaabun aliim waa dabayl cadaab xanuun badan wadataa tudammiru kulla shayin biamri rabbiha shay kasta ilaahay amarkiisay ku baabi'isay fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum guryahooda mee wax kale waa la arki waayey taasuu ilaahay tilmaamayaa sacad dabeeshaa loo soo diray sida ilaahay tilmaamay sakharahaa calayhim 7 layaalin wa 8 ayaamin xusuuman 7 habeen oo ah buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala 7 layaal waa 7 habeen wa 8 ayaam iyo 8 maalmood oo hal mar dabeel aan istaagin ma sahlana taasuu ilaahay ku halaagay fa anjaynaahu waan badbaadinay huud waaladiina iyo kuwii macahu asaga micigiisa ahaa biraxmatin raxmad ayaan ku badbaadinay iyo naxariis minaa xaggeenna ka ahaatay waqatacnaa waan gooynay waxaan dabar jarnay daabira aladiina kuwii ciribtooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeena dhammaan waa la tirtiray wamaa kaanuu mu'miniina mu'miniin bay noqon waayeen wamaa kaanuu maysan ahayn mu'miniina qisadii labaad ayaa meesha looga baxay qisadii saddexaad baanu gelaynaa waa reer hamuud iyo nebi saalix calayhi assalaam wa ilaa hamuuda reer hamuudna waxaan u dirnay akhaahum walaalkood saalixan saalix ahaa nebi saalaxaa loo diray ayagana qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkeeyow ucbudullaaha ilaahay caabuda maa lakum idinma ahaanin oo idinma sugnaanin mana lihidiin min ilaahin ilaah oo hayruhu ilaahay ka soo haray subxaanah wa tacaala qad jaa'atkum waxaa idin timid bayinatun xujo cad ayaa min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinkaga timid haadihi midaan naaqatullaahi hashii ilaahay waaye lakum adinkay idiin sugnaato lakum waxaa idinkugu jirto idinkugu sugan aayatan cibro aayad iyo calaamay idiin tahee fadaruuhaa iska dhaafa
ka taga hashaan ta'kul ha cunto fii ardi illaahi ilaahay arladiisa. biyo iyo baad iyo coos idinkama rabtee dhaafa hashaan, arlada ilaahay ha cunto. walaa tamassuuhaa ha ku taabanina, wax xumaana ha ku taabanina, ha dilina, ha cadaabinina. haddaad dhib ku taabataan faya'khudakum oo idinka qabta markaa ilaahay xaggiisa cadaabun cadaab aliimun ee xanuun badan. oo faya'khudakum uu idinku qabta markaa ilaahay hashaan haddaad u dhowaataan cadaab aliim oo xanuun badan. hasha ayagaa codsaday, aayad ilaahayna tusi bay dhaheen, aayadkeen in kunta min asaadiqiin, haddii kale innamaa anta min almusaxariin, kuwa sixran ayaad ka mid tahay. weliba meel sibsib ah oo dhagaxay dheen hal ka soo bixi meeshaan. hashii baa ilaahay u soo bixiyey subxaana wa tacaala. washaantii hoosii meelahaasaan ku soo marnay mar allaala markaan marayni. waata ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala, kadabat hamuudu bitaqwaaha id inbacafa ashqaaha faqaala lahum rasuulu ullaahi naaqata allaahi wa suqyaaha. war hal ilaahay waayee ayada iyo waraabkeeda ka tagaa la yidhi. fakadabuuhu facaqaruuha, way diideen oo way beeniyeen, wayna boqon jabiyeenoo hashiibay dileen. ilaahay baa marka cadaab ku salliday subxaana wa tacaala. reer hamuud walaalkood baa loo diray. wa ilaa hamuuda, hamuud xaggoodana waan dirnay. wa arsalnaa ilaa hamuuda, hamuud intii ka ah waxaan u dirnay akhaahum walaalkood saalixan, saalix ahaa. walaal marka leeyahay hadday diinka diidaan, islaamnimo walaal kuma aha, laakiin waa walaal xagga nasabkaa loola jeedaa. qaala wuxuu yidhi, yaa qowmi qoomkeeyow, yaa qowmi icbudullaah, war ilaahay caabuda, maa lakum idinma sugnaanin, macnaha maba lihidiin waaye, min ilaahin hayruhu, ilaah alla ka soo haray ma lihidiine, ilaahay keligii caabuda waxida. macnaha qad jaa'atkum waxaana idin timid bayinatun, xujo cad ayaa min rabbikiisa idinkaga timid, xujo tilmaamaysa inaan nebi ahay. aayad ilaahay uu ila soo diray waa hale, hashaan waa kaasaa, aayad cad bay idinkugu sugan tahay. hasha marka loo soo bixiyey waxaa la yidhi, hal maalin biyaha u dhaafa, ayadaa cabaysa. hal maalinna idinkaa cabayay idinma imaanayso. maalinta tookadeeda ay tahay hasho ayagoy biyaha cabaynin, aayad waxaa u ah dhammaantood caanaheeda markaa ku filan, caanaheeda markaa ku filan. sidaa dhammaan la yidhaahda oo dhan hashaan ha ku taabanina, haddaad ku taabataanna faya'khudakum uu idin qabta markaa. waayo hashaan haddaad dishaan waxaa idin qabanaya cadaabun cadaab, cadaabkaasoo aliimun xanuun badan. cadaab aliim ahoo xanuun badan idiin qabanin hashaan iska daaya, dhibaataha gaarsiinina, wax mashaakilaha. aamin ahoo la aaminay. awacajibtum ma yaabteen qoomkeeyow an jaa'akum inuu idiin yimid miyaad la yaabantihiin dikrun waxyi oo min rabbikum, rabbigiin xaggiisa idinkaga yimid. dikri calaa rajulin, nin dushii lagu soo dejiyey oo minkum adinka idinka mid ah, liyundirakum suu idinkugu digo. wadkuruu xusuusta id wakhti jacalakum uu idinka yeelay alle khulafaa'a, kuwa arlada khaliif u noqdo bedelay ama camiray oo khaliifo u ah, min bacdi qowmi nuuxin, qowmu nuux kadib. wasaadakum wuxuu idiin siyaadiyey ilaahay uu idiin kordhiyey fi lkhalqi, abuurka dhexdiisa basdatan fidin, waxyaabo badan buu idiin fidiyey. fadkuruu xusuusta qoomkeeyow aalaa ilaahay nimcooyinkiisa xusa, lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaane. qaaluu waxay dhaheen aji'tana ma noo timid oo ma waxaad noola timid huudow, linacbud allaaha inaan ilaahay caabudna darteed waxdahu keligi, wanadara aan kamaa kii kaana yacbudu ay ahaayeen wa caabuda aabbaa'una aabbayaalkeen inaan ka tagna waxay samayn jireenna ma saasaad noola timid. warkaaga war soconaya ma aha, ee fa'tinaa noo keen, la imow bimaa taciduna waxaad noo yaboohaysa in kunta haddii aad min alsaadiqiina kuwa runta sheegaya ka mid tahay. qaala huud wuxuu yidhi, qad waqaca waxaa dhacay calaykum korkiina min rabbikum, rabbigiin xaggiisa waxaa ku soo dhacay oo ku waajibay korkiina rijsun cadaab wa qadabun iyo xanaaq ilaah subxaana wa tacaala. atujaadiluunanii ma ila murmaysaan,
ma waxaad igula doodaysaan fi asmaa'in magacyo sammaytumuuhaa iska magacabeen antum adinka waabaa'ukum aabaalkiin meel ay ka yimideen iyo meel sal ay ku leeyihiinna ay markaa jirin maa nazala allaahu alla ma soo dejinin bihaa taa min sulطaanin wax xujo iyo awood ah faاntadiruu suga cadaabka waaba imaanaayo innii anigu macakum micigiinna min almuntadiriina kuwa idinla sugaayaan ka mid ahay faanjaynaahu waan badbaadinay huud iyo waaladiina kuwii macahu asaga la jirayba biraxmatin baan ku badbaadinay raxmad mina annaga xaggeenna ka ahaatay waqatacnaa waan goynay waan jarno waan goynay daabira aladiina kuwii ciribtooda daabir macnaa waa midka ugu dembeeyey kuwii ilaahay aayaadkiisa beeniye koodii ugu dembeeyey dhammaan macnaha waan dabargoynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna wamaa kaanuu mana aysan ahaanin mu'miniina kuwa mu'miniinna ma noqon hadday mu'miniin ahaan lahaayeen lama halaageen mana la cirib jari lahayne ilaahay wuu badbaadin lahaa wa ilaa hamuuda waan dirnay hamuud xaggoodana akhaahum walaalkood ayaan u dirnay saalixan nebi saalix ahaa qaala wuxuu ku yidhi yaa qowmi ucbudullaaha yaa qowmi qoomkeeyow ucbudullaaha ilaahay caabuda maa lakum idinma sugnaanin mahdiin min ilaahin hayruhu ilaah alla ka soo haray qad jaa'adkum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad ayaa min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinkaga timid haadihi midani naaqatullaahi ilaahay heshiisii waaye lakum adinkay aayatan aayad idiin tahee fadaruuhaa isaga taga ta'kul ha cunto fii ardi illaahi arladaa ilaahay ha daaqdee ha cuntee daaya xumaan uun ha ku qabanina xumaan ha ku taabanina oo faya'khudakum ou idin qabta idinkana cadaabun aliima cadaab aliim ah oo xanuun badan qoomkiisii buu sii waaninayaa wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caadin wabiاllaahi towfiiq wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam.